وعنا ونكسن داودي halkan waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka duhurnimo aan idin haynana waxa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo la kulmay safiirka dalka Sacuudi Carabiya xuska sanad guurada 15aad ee dib u cusboonaysiinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo saaxiibtinimada ee waarta ee Soomaaliya Turkiga oo ka socota magaalada caasimadda Muqdisho shaqaalaha waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir oo la nadaafadeed oo ballaaran ka sameeyay magaaladan caasimadda ee Muqdisho cutubyo ka tirsan daraawiishta booliska Soomaaliyeed oo gaaray degmada Ceeldheer qodobadaasi waxay nagu soo kordhay ayaan daawada ku soo qaadan doonaa warkeena duhurnimo ku dhow diyaar garow warkaas oo faahfaahsan وهاك دعوة أنت سوحي هايان قضبضي ورارك وقدر كورونا هاتنا وحد كسو دواتان وركاسو في السنة وإذين أخرياني وآه عبد القادر محمد معلن كالقال gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa la kulmay safiirka Sacuudi Carabiya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka boqortooyada Sacuudi Carabiya oo fadhiya Soomaaliya safiirka ayaana ugu horeyn gudoomiyaha uga hambalyeeyay doorashadiisa xilka gudoomiyaha golaha shacabka kulankan ayaana looga hadlay xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo markaas walaaltinimo iyo iskaashiga qotada dheer ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya gudoomiyaha Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ah gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dawladda Sacuudiga uga mahad celiyay taageerada joogtada ah ay la garab taagan tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed xuska sanad guurada 15aad ee dib u cusboonaysiinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo saaxiibtinimada waarta ee Soomaaliya iyo Turkiga oo ka socota magaalada caasimadda ee Muqdisho وورين وحال كاسي كهالله وزير كوزارة عدالة دياري مها دستور كحكومة فدرال كصوماليا وحول شيء إن حرير كدبلوماسيات صوماليا تركيا وحرير هذا مركزي كدوان حرير هذا كلاته مدحض أوجس الرئيس الدولة تركيا أي كسو ديردين إن يمادان صوماليا حل أي حالة عدد مركزي كجيرين دالكينا هاي فرتي الباب صوماليا إن رجال هذا هاي صوماليا إلا لما عملي كرو صوماليا إن إسكاشي dawladeed oo ixtiraam iyo walaaltinimo ku dhisan in la sameeysan karo ayay ibafur u ahayd aniga waxa farxad gooniye ii ah xilligaas inaan ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliya goobjoogna aan u ahaa si gaar ah ayay runtii ii taabanaysaa isbedelkaas Soomaaliya ku yimid labada wadan Soomaaliya iyo Turkiga dalka Turkigu waa dal dawlad casri ah oo si casri ah u dhisan Soomaaliyana xilligaas waxay u baahnayd walaal ka weyn oo waxa la yiraahdo big brother ay u baahnayd oo gacanta qabta wayna heshay runtii wayna heshay waxay kale u baahnayd Soomaaliya xilligaas role model cid ay ku dayato ayay u baahnayd oo ay kaga dayato dawladnimada iyo qaran dhiska uga dayato iyadina waa ay heshay marka maanta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay xiriirkeenu halka uu marayo oo runtii mid istiraatiijig ah oo aad iyo aad u qoto dheer u gundheer Soomaaliyana runtii dowr wanaagsan ayay ka ciyaartay markii la isku dayay nidaamka wadankaas ee dastuuriga ah in la afgambiyo 2016kii Soomaaliya waxay noqotay dawlad iyo walaal abaal celi kara oo ah inay noqoto dawladdii ugu horeysay ee cambaaraysay isku daygaas afgambiga 2016 waana hadda dawladdan
xukuumaddan waxay ku taagan tahay oo ah xiriirka dowladaha oo la hagaajiyo ixtiraam iyo walaaltinimona ku dhisnaada. shaqaalaha waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir ayaa olole nadaafadeed oo ballaaran waxay ka sameeyeen magaalada caasimadda ee Muqdisho. Warbixinta waxay noo soo koobayaa wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. shaqaalaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir ayaa saaki waxay ka qayb qaateen ololaha nadaafadeed ee ka socda magaalada caasimadda ee Muqdisho, iyadoona saaki olole nadaafadeed laga sameeyay isgoyska Boondheere ilaa isgoyska Manabolyo, halkaasi oo laga qaaday qashinkii iyo caradii uu keenay roobkii ka da'ay magaalada caasimadda ee Muqdisho. ololaha nadaafadeed ee ka socda magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale qayb ka qaata waaxda nadaafadda iyo sidoo kale waaxda gaadiidka ee maamulka gobolka Banaadir. ololaha nadaafadeed ee saaki ay ka sameeyeen shaqaalaha waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir isgoyska Boondheere ilaa isgoyska Manabolyo ayaa waxa ay markaasi soo celiyeen bilicda wadadaasi, iyadoona dadweynaha ku dhaqan halkaasi loogu baaqay in ay ilaaliyaan bilicda wadada. markuu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay agaasimo ku-xigeenka waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir, isagoona ka warbixiyay shaqada saaka halkaasi ay ka qabteen. tahay 19 bisha Agost 8 2026 waxaan joognaa degmada Boondheere isgoyska degmada Boondheere ilaa iyo masaajidka Xaaji Barow inta u dhaxaysa oo aan ka hayno nadaafadii caadiga ahayd kamid ahayd howlaha maamulka gobolka Banaadir kamid ahayd oo ay ka qayb gali jireen waax waliba ay maalin ka qayb gali jirtay ama labadii waaxba ama saddex intii loo qoondeeyba ay ka qayb gali jireen oo lagu nadiifinayo magaalada oo ay ujeedadeedu tahay astaantii uu dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada oo noo asteeyay oo ahayd in la soo celiyo bilicda magaalada. sidaas daraadeed maanta waaxda caafimaadka iyo gaadiidka iyo kuwa kale oo nagala qayb galay hawshaas ayada ah ayaan waxaan ka haynaa degmada Boondheere isgoyska Boondheere ilaa iyo masaajidka Xaaji Barow. dhanka kale madaxa ganaxyada waaxda nadaafadda ayaa asna goobta ka hadlay. dadka hareeraha taagan, dadka hareeraha shatidu ku leh ee hortooda wasaqda waxaa jira ganaax ninkii shati lahow shatigaaga in lagala naqon doono ee qaladka aad gashay aad ku mutaysan doonto ganaax. fadlan hortaada nadiifi si caafimaadka bilicda magaalada ay u soo noolaato. wabillahi tawfiiq waana mahadsantihiin. Farxaan Maxamed Xuseen, warbaahinta gobolka Muqdisho. cutubyo markaasi ka tirsan daraawiishta booliska Soomaaliyeed ayaa gaaray degmada Ceeldheer. cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee booliska Soomaaliyeed ayaa gaaray degmada Ceeldheer ee bariga gobolka Galgaduud, halkaasi oo ka bilaabanayaan howlaha lagu xaqiijinayo sugidda amniga iyo sidoo kale adkeynta laamaha ammaanka ee degmada. ciidamadan ayaa loo qorsheeyay inay qayb ka noqdaan sugidda amniga baraha markaasi laga soo gala degmada, saldhigga booliska iyo sidoo kale xarumaha dawladda si loo xaqiijiyo amniga shacabka iyo goobaha muhiimka u ah. daraawiishta boolisku waxay si diiran markaasi u soo dhaweynayaan maamulka degmada iyo saraakiil markaasi ka tirsan ciidamada qalabka sida. ciidamadan ayaa waxaa hogaaminayay Xidigle Maxamuud Carab Cismaan, halka dhanka booliska degmadana ay soo dhaweeyeen saraakiisha uu ka mid yahay Xidigle Axmed Xasan Cadaawe Axmed Najaad, taliye ku-xigeenka booliska ee degmada Ceeldheer. in degmada Ceeldheer ay maanta soo gaareen ciidanka booliska daraawiishta booliska Soomaaliyeed aad aan ugu faraxsanahay. waana soo gaareen cutubyo ka tirsan farxadeen inoo tahay in muddana waan ku taameelin in imaad doonaan. waxaan filayaa in maarkino hadafyada ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo fikirkii taladiisa inay ku imaadeen. waana soo dhaweynaynaa, soo dhawaadaan leeyahay. boolisku waa ilaaliyaha nafta iyo maalka. booliskuna waxaa waay meel walba ka muuqdo waxaa astaan nabadeed u taagan yahay boolisku. meeluusan boolis joogin waxay u dhigmataa meel colaadeed inay tahay. Ceeldheer waxay ka mid noqotay meelasha ciidanka booliska uu ka howlgeli jiray, haddana dib ugu soo noqdeen. khaasatan fadhiyada bannaan ee daraawiishta qayb ka mid ah inay maanta nala joogaan aad ugu faraxsanahay. imaatinka ciidamadan ayaana qayb ka ah qorshaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee lagu xaqiijinayo amniga iyo joogitaanka hay'adaha dowladda iyo deegaanada markaasi la xoreeyay. Ceeldheer ayaana muddo sanadaha markaasi ahayd goob muhiim u ah dadaalada amni, iyadoona ciidanka xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka iyo maamulka degmadaba ay ka shaqeeyeen difaaca shacabka iyo ka hortagga kooxaha maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. arrintan ayaa sidoo kale ku soo aadaysa kadib booqasho
uu bilo ka hor markaasi degmada uu ku tagay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sarreeye Guuto Asad Cismaan Cabdilaahi kaasoo ballan qaaday in degmada markaasi la gaarsiin doono cutubyo ka tirsan booliska Soomaaliyeed. Maamulka iyo saraakiisha ciidamada ayaana xusay muhiimadda ay leedahay iskaashiga ciidanka xoogga dalka iyo booliska iyo ciidanka markaasi deegaanka iyo maamulka degmada si loo xaqiijiyo amni waara iyo dib u dhiska hay'adaha dawladda. Joogitaanka daraawiishta booliska ee Ceeldheer ayaana loo arkaa tallaabo lagu xaqiijinayo amniga degmada iyo sidoo kale ballaarinta adeegyada dawladda, iyadoona dawladda federaalka ee Soomaaliya ay wado qorshayaal lagu ciribtirayo maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab ee weli ku dhumaalaysanaya deegaanada fogfog. Wahagaag daawade intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii duhurnimo. Warka waxaa halkan idin kala socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Macalin Kalgacal. Intaan ku kulmi doono warka xiga waxaan idinkaga tegaynaa daawadayaal sidaas nabadgelyo.